maanta farxad noo ah inaan ku soo dhaweyno madaxtooyada Puntland magaalada Garowe ambassadorka Sweden iyo hay'adda Diakonia oo booqasho halkan noogu yimid waxaa kaloo sharaf noo ah inuu safiirku nagala soo qayb galo iyo madaxda Diakonia dabaaldegii 25 guuradii ka soo wareegtay markii xafiiskii ugu horeeyay ee Diakonia laga furay Puntland oo runtii Diakonia ay taariikh weyn ku leedahay wax badan ka soo qaadatay dhinaca waxbarashada haweenka dhalinyarada iyo mashaariicda horumarinta inta badan ku salaysnaa dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska Puntland waxaan uga mahad celinaynaa madaxda Diakonia iyo dalka Sweden muddadii dheereed ee dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland ay garab taagnaayeen waxaan runtii u ballan qaadeynaa in aan si dhow ula shaqeyn doono waxaan rajaynaynaa inay dadaalkii ay wadeen ay inta ka sii badiyaan waana ku faraxsanahay wada shaqeynta Sweden waxaan sii ballan qaadeynaa in aan si dhow ula shaqeyn doono marxaladda soo socotana waxaan ka filaynaa dalka Sweden in ay dhinaca gargaarka kaliya ayna ku ekaane ganacsatada iyo shirkadaha Sweden ay dalka maalgashi u yimaadaan si ay u abuuraan shaqooyin ay uga faa'iideystaan khaasatan dhalinyarada iyo guud ahaan dadka reer Puntland arrimaha aan ka wada hadalnayna waxaa ka mid ahaa sidii loo gudbi lahaa marxaladda maalgashiga iyo ka shaqeynta mashaariicda horumarinta khaasatan dhinaca infrastructure-ka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa safiirka iyo wafdigiisa waad mahadsantihiin. So thank you Mr. President for welcoming me to Puntland today, to Garowe. It's a great honor to be here and to congratulate you on taking on your very important leadership role for Puntland. We were very happy from the Swedish point of view to see a peaceful handover of power after the elections recently, and we're looking forward to collaborate with Puntland as you deepen your democracy. And in that regard, we are also very happy to pay tribute to Diakonia, who are celebrating 25 years of activities here to build and strengthen the democracy of Puntland, and also to include women on a seat at the table. We would like to see in the future more women taking ministerial posts as we move ahead in the future, and also of course in the parliament. And also I want to send the best regards from many Puntlanders in Sweden who have found a home in Sweden in the history. That might be a new fact, but almost 1% of the Swedish population is of Somali origin, and they contribute to the Swedish society in a very positive way, and I'm also here to celebrate that relationship. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Ambassador. It's a great honor to be here as representative of Diakonia. We are so happy and so proud to have able to be part of the development of Puntland for such a long time. And as we celebrate the 25 years of walking together, creating the democracy, creating a ground for women and men to take part in the building of the Puntland nation, we look forward to the coming 25 years. And in able to do that, I think I'd like to stress what the ambassador said, that we need to work with women, but also with youth, making sure that young people at local level come into the political decision-making systems so that they become really strong contributors to the nation building. And I would also like to congratulate the President, just as the ambassador, on the it's not every state that managed to make the transition, a peaceful transition from one president to the other, and I think Puntland should be congratulated for that, and you, Mr. President, as well, and ministers. So again, thank you for receiving us. We're deeply honored, and we wish you all the best, and I really look forward to the coming 25 years.